bismillah. Waxaan rabnaa academic score kan aan haysano datada aan haysano ayaan rabnaa inaan u bedelno into grades. Si aan grades ugu bedelno waxaa aadi doonaa transform waxaa kasii tegi doonaa record into different variables. Ani hore u sameeyay so reset ayaa dhihi doonaa si aan markale u wada sameyno. waxaan sameyn doonaa marka variable kan aan haysano academic grade ka ah ayaan soo qaadan doonaa. waxaan keeni doonaa boxkan anagoo filtertaas kali ku siinayna. Then academic score kan variable ka hore u haysanay ayaan waxaan ula bixi doonaa magac cusub u bixino kasoo qaad grades. meeshaan level kan aan u bixino grades of students. Then waxaad taabataa change kadib waxaad click ku dhahdaa old and new values. sanduuqana noo soo bixi doona kadib waxaad ku dhufataa meeshaas ay ku qoran tahay range. range waxaan sameynaynaa marka ardayga haysta natiijadiisa u dhaxayso 50 ilaa iyo 59 gradekiisa waxaan u qoonsanaynaa. waxaan imaanaynaa meesha new values ay ku qoran tahay values horteeda boxkaas yar aan hortegaynaa. waxaan u qoonsanaynaa gradekiisa ardaygaas inuu noqonayo 2.5. thenna meeshaan imaanaynaa add ayaa dhihi doonaa. so sida sanduuqan ka muuqata 50 ilaa iyo 59 ardaygii scorekiisa uu yahay gradekiisa wuxuu noqonayaa 2.5. then isla rangiga imaanaynaa ardayga natiijadiisa u dhaxayso 60 ilaa iyo 69. sidoo kale natiijadiisa ama gradekiisa wuxuu noqonayaa 3. then markaas waxaa leedahay add. isla meesha rangiga imaaw ardayga natiijadiisu ay u dhaxayso 70 ilaa iyo 79 ardaygaasna gradekiisa wuxuu noqon doonaa 3.5. then add. waxaa ognahay dhibcaha ugu badan ama grade ugu badan la keeno waa 4. so ardayga haysta meeshaan imaanaysaa range values through highest. meeshaasaa imaanaysaa keligaa dhehaysaa sanduuqaana kuu furmaayo. so meeshaan ku qoranaysaa 80. that means maxaa waaye 80 through highest ama 80 iyo wixii ka badan qofkii keena gradekiisa wuxuu noqon doonaa 4. so waxaa leedahay add. sida aad ku aragtiin sanduuqan waxaan noo dhamaystirmay dhammaan natiijooyinka aan haysano ayaan wax u bedelnay into grades. so waxaa leedahay continue then waxaad dhihi doontaa okay. so haddaan kan iska soo xirno meeshaan waxaa ka muuqda wuxuu noo abuuray variable cusub oo ah grades. so sida meesha ka muuqata 80 arday keena wuxuu haystaa 4. sidaan hore usoo code garaynana waxaa dhanay 80 iyo wixii ka sarreeya gradekooda wuxuu noqon doonaa 4. sidoo kale 75 ardayga haystaa gradekiisa waa 3.5. waxaa ogeyn ardayga natiijadiisu ay u dhaxayso 70 ilaa iyo 79 gradekiisa wuxuu noqonayay 3.5. sidoo kale ardayga 67 scorekiisa uu yahay gradekiisa wuxuu noqonaa 3. ardayga 58 gradekiisa wuxuu noqonaa 2.5. ardayga 98 haysta gradekiisa waa 4. ardayga 77 haysta gradekiisa waa 3.5. ardayga 68 haysta gradekiisa waa 3. so haddii aan haysto